fid wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda Risaale caawana kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah xaaladihii ugu badnaa cudurka COVID-19 oo laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir, Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed. Madaxweyne Farmaajo qadka telefoonka kula hadlay Uhuru Kenyatta kana tacsiyay shirkii diyaaradeed dadkii ku dhintay. Dowladda Soomaaliya maanta khubaro u dirtay goobta ay ku burburtay diyaaradii ku dhacday Bardaale. Dowladda Kenya oo Soomaaliya ka dalbatay baaritaan heer caalami ah in lagu sameeyo sida ay ku dhacday burburka diyaaradaasi. weerarada madaafiicda ee lagu qaado saldhigyada iyo xarumaha dowladda oo kusoo badanaya Muqdisho iyo hay'adaha amniga oo ku guuldareystay xakameynta. taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland oo iscasilay iyo khilaafkii ugu xumaa oo ka dhac jiray saraakiisha madaxtooyada Puntland. madaxweynaha Puntland oo sheegay inay burburiyeen shabakado Al-Shabaab iyo Daesh oo ka dhisnaa gobolka Bari. Puntland oo shaacisay kiisaskii ugu badnaa ee ku aadanaa xanuunka COVID-19. militariga dalka oo soo saaray miinooyin Al-Shabaab ay ku aasan inta u dhaxaysa Awdheegle iyo lambar 50 ee Shabeellaha Hoose. iyo hay'adda caafimaadka adduunka oo digniin ka soo saartay isticmaalka daawooyinka aan la tijaabin ee cudurka COVID-19. warshada isbuunyada Shaakir tayo iyo taabagal weeye. intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena caawa kuwada ugu waaweyn. faahfaahinta ayaan gudagali doonaa 5 May waa 5 bisha May 2020. faahfaahinta u diyaar garooba. xaaladihii ugu badnaa ee cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga diiwaan geliyay ayaa maanta kor u dhaafay ilaa 70 qof oo qaba xanuunkan, kuwaas oo ku nool gobolada Banaadir, Jubbaland, Puntland iyo Koonfur Galbeed. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya maanta shaacisay tirada kiisaska cusub ee coronavirus 24 saac la soo dhaafay ee laga diiwaan geliyay gudaha dalka. warbixinta maalinlaha ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu shaaciyay in cudurkan hadda la helay 70 qof oo qaba, kuwaas oo ku nool gobolada Banaadir, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland sida ay sheegtay wasiiradda. xaaladaha la helay tiradooda waxay gaaraysaa 79. waxaa rag ah 62, waxaa dumar ah 17. nambaradaas meesha ay ka kala joogaan Soomaaliya. Banaadir waxaa jooga 38 xaaladahan inshallah 24 saac ugu dambeeyay laga helay. Jubbaland 22, South West 11, Puntland 8. marka dadka laga helay da'dooda hadaan fiirino inta ay u dhaxayso iyo boqolleyda ka yar 20 sano waxay noqonaysaa boqolkiiba 3. 20 ilaa 39 waxa u dhaxeeya da'dooda waxay gaareen 75 boqolkiiba. 40 ilaa 59 iyagana tiradooda waxay gaaraysaa yacni boqolleydii 12. 60 sano iyo inta ka weyn waxay noqonaysaa boqolkiiba 10. tirada guud ee dadka laga helay wadankeena coronavirus positive ah waxay isugu tagaysaa 835. dhimashada waxaa ku soo korortay 3 qofood. ilaahay ha u naxariisto, jannadii ha ka waraabiyo, sabar iyo iimaan ha ka siiyo intii dhimatay. tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tagaysaa 38. waxaa laga waayay viruska jirkooda ama ka bogsaday cudurka 14 qofood. tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 75. sida loo jeedo nambaradii dan fiirno Muqdisho gobolka Banaadir iyo gobolada kale waa sii kordhaysaa. waxay u sii kordhaysaa waliba si aan caadi ahayn. haddii la fiiriyo taas micnaheeda waxaa jira dad kale oo ka badan oo aanan wali la arkin ama aanan soo sheegin soo raadsan adeeg caafimaad. waxaan kula talinaynaa qof allaale qofkii cudurka calaamadiisa isku arka ama isaga shakiya inuu tago xarumaha caafimaadka ugu dhow, inuu wacdo nambarkii loogu talagalay gobolada dhan. nambar raajiro loogu talagalay oo free ah inuu wacdo, inuu warsado yacni kaalmo caafimaad iyo waano. guud ee kiisaska xanuunkan COVID-19 ee gudaha Soomaaliya ayaa markan waxay gaartay 835 kiis, waana tirada ugu badan marka loo eego guud ahaanba tirada dalka xanuunkan. waxaana la sheegay 75 qof oo kamid ah dadkaasi in ay hadda kasoo kabanayaan xanuunka. 38 qofna waxaa la xaqiijiyay in xanuunkan ay u dhinteen COVID-19 ee gudaha dalka. wararka la xiriira shilkii diyaaradeed ayaan gudagali doonaa. madaxweyne Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha wadankaasi Kenya Uhuru Kenyatta, isagoo kala hadlay shilkii diyaaradeed kana tacsiyay muwaadiniinta Kenyaanka
waa muwaadiniintii u dhashay wadanka Kenya ee diyaaradaasi saarnaa ee u dhintay shilkaasi. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa eegaya. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si uu muujiyay sida uu xun yahay ugana tacsiyay geeridii muwaadiniinta Kenyaanka ah ee ku dhintay diyaaradii shalay ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay. sida uu qoray TV-ga lagu magacaabay Citizen ee laga leeyahay dalka Kenya, madaxweyne Farmaajo ayaa ku wargeliyay madaxweynaha Kenya in hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ee sida ugu dhaqsiyaha badan ay baaritaano ku sameyn doonto duruufaha ku xeeran sababta keentay in diyaaradaasi ay burburto. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu casuumaad u fidiyay hay'adda duulista rayidka ah ee dalka Kenya si ay ula midoobaan dhigooda Soomaaliya loona soo gabagabeeyo baaritaanada. Uhuru Kenyatta ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Farmaajo sida uu qoysaska shaqaalaha diyaaradaasi ku dhintay uu tacsida ugu diray, isagoo sheegay inay u soo diri doonaan khubaro baaritaanada wax ka sameeya. sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa soo dhaweeyay casuumaadda mas'uuliyiinta duulimaadyada rayidka ee Kenya si ay ugu biiraan baaritaanada shilkaasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa iyo hadda aysan wax faahfaahin ka bixin sida ay wax u dhaceen. diyaaradda Embraer ee 120 oo ay maamusho shirkadda diyaaradaha ee African Express ayaa waxaa la sheegay in ay dawo samafal iyo agab caafimaad lagu talagalay ay u waday magaalooyinka Bardaale iyo sidoo kale Baydhabo, isla markaana markii Baydhabo geesay oo Bardaale garoonkiisa ay ku sii dhowdahay halkaasi ay ku burburtay 6 ruux oo isugu jira 2 Soomaali iyo 4 Kenyaan ah ayaa ku dhintay. inkastoo mas'uuliyiinta shirkadaasi ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan aaminsaneyn in diyaaraddu ay burburtay oo la soo riday, haddana mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin wasiirka duulista hawada Soomaaliya ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen, kuwaasoo xilligan qayb ka ah baaritaanada lagu ogaanayo waxa sababay in diyaaraddaasi ay soo dhacdo iyadoo garoonka diyaaradaha ee Bardaale ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda Itoobiya. haddaba iyadoo sidaas ay tahay ayaa dhanka kale dowladda Soomaaliya waxaa la sheegay in maanta khubaro ay u dirtay goobtii ay ku burburtay diyaaradii shalay ku dhacday Bardaale. Maxamed Bootan ayaa eegaya. dowladda federaalka ee Soomaaliya oo rasmi ah ka soo saartay diyaaradii shalay ku dhacday magaalada Bardaale ayaa sheegtay inay si rasmi ah u bilowday baaritaan ku aadan shilkaasi oo ay ku dhinteen ilaa 6 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa guddi khubaro ah saaka u dirtay goobta ay ku burburtay diyaaradda oo ay lahayd shirkadda African Express. guddigan ayaa soo baari doona sababta rasmiga ah ee ka dambeysay burburka diyaaraddaasi oo la sheegay in si ula kac ah ay u soo rideen ciidamada Itoobiya. wasaaradda gaadiidka ayaa sidoo kale shaacisay inay si degdeg ah u shaaci doonto natiijada baaritaankaasi, isla markaana ay la wadaagi doonto ummadda Soomaaliyeed. diyaaradda oo nuuceedu ahaa E120 ayaa siday shixnad gargaar dawo ah, waxaana ku nafwaayay dhammaan dadkii saarnaa oo 6 qof ahaa. war lagu kalsoon yahay oo risaale ay heshay ayaa sidoo kale sheegaya in duulimaadka diyaaraddaasi ay haysatay ogolaansho wasaaradda duulista dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo hore loo wargeliyay maamulka garoonka Bardaale lagana warqabay xilliga duulimaadkaasi uu ku soo wajahnaa garoonka. dadka ku dhintay shilka ayaa kala ahaa Kabtan Xasan Muuse Bulxan, Kabtan Mubruuk, Kabtan Umar, injineer Kenyaan ah, mas'uulkii xamuulka saarnaa diyaaradda Cali Madaxa Guud, iyo wakiilkii shirkadda Saciid Cabdilaahi Maxamed, sida uu sheegay xildhibaan Ibi. haddaba iyadoo sidaas ay tahay dowladda Kenya waxay dalbatay baaritaan heer caalami ah in lagu sameeyo wixii sababay burburka diyaaradda. dowladda Kenya ayaa dalbatay baaritaan dhab ah oo ku saabsan diyaaradii shalay ku burburtay degmada Bardaale, taas oo warar kala duwan oo iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sida diyaaraddaas ay u burburtay. qoraal ka soo baxay dowladda Kenya waxaa lagu codsaday in baaritaankaas qayb ka noqdaan beesha caalamka si loo soo bandhigo xaqiiqda jirta oo dhabta ah. diyaaradda African Express ayaa laga leeyahay wadankaasi Kenya ayaa muddo ka howlgalaysay Soomaaliya iyadoo haysatay ruqsadda, waxaana maamulka hay'adda saadaasha hawada ee dalkaasi Kenya ay u sheegeen in diyaaradda xiriirkeedii la waayay shalay 4 galabnimo iyo 20 ilbiriqsi wixii ka dambeeyay. maamulka hay'adda ayaa sheegay in ay jawaab ka sugayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan sababta burburka diyaaraddaasi sababay. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa laga soo xigtay in ciidamada Itoobiya oo ku guda jiray tababarka dabridka ah ay soo rideen diyaaraddaasi
kadib gantaal ay tuureen sidaa ay xubno kamid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed laga soo xigtay 6 qof oo 2 kamid a Soomaaliya ahaayeen ayaa ku nafwaayay shirkaas diyaaradeed kuwaas oo badi u badnaa kuwa diyaaradda ka shaqeynaya madaxweynaha Soomaaliya ayaana ugu dambeyn Uhuru Kenyatta kala hadlay shirkada diyaaradeed waa hagaag warada madaafiicda ah ee lagu qaadayo saldhigyada ciidanka dowladda iyo waliba xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda caasimada dalka ee Muqdisho ayaad moodaa dhowrkii cisho ugu dambeeyay inay sii kordhayeen qasaaraha ka dhalanaya iyadoo hay'adaha ammaanka ee dowladda ay ku guuldareysay xakameynta ama soo qabashada shakhsiyaadka maalin cad Muqdisho hoobiyaasha ku soo tuuraya maxamed cabdi ayaa warbixinta ku eegaya in ka yar muddo 10 maalmood ah ayaa weeraro madaafiica waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho taas oo ilaa hadda dowladda Soomaaliya aysan ka bixin jawaab adin ama af midood waxaana madaafiicda oo ka kala dhacay degmooyinka Wadajir iyo Cabdilcasiis ay badi qasaare gaarsiiyeen dad rayid ah oo guryahooda ay ugu tageen madaafiic habow ah al-shabaab oo mas'uuliyadda qaar ka mid ah weeraradaasi sheegtay waxa ay tilmaameen inay ku beegsanayeen xirada ciidanka AMISOM ee Xalane weerar dhacay subaxnimadii Axadda 26 bishii Abriil waxaa lagu bartilmaamaysaday guryo ay leeyihiin dad rayid ah oo ka agdhow xirada Xalane ee Muqdisho guri ay jiiftay ilmaha kalena bersiday jiifeen marka kii guri galay oo ku habsada gabadha ku habsada ilmihii kale ku dhaceen firir mid dusha galaal waay labada kalena dhinaca waay dhinacay ugu dhaceen mid hadda dhaawaceeda culays ah Yusra Cabdirasaaq Axmed Allah gabadha bersidaanay ku jireen hal qolkeeda ay jiiftay kuwa kalena bersiday jiifeen waa gabdha yar yar waay mid 14 jir ah mid 17 jir ah mid 19 jir ah waay midna 15 sano jirta gabadha wiilkii qabo oo guriga ugu dhacay oo qolka kuwa jiifeen walaashii dhashay waa soo kaxeen janaalay ka soo kaxeen 3 gabdho way marteen oo ahaayeen laba hasha kalena walaalkii dhalo oo isku aabana guriga isla wada deganaa hala uu dhib badan hasha guriga ku jirta uu dhib badan ilaa hadda waa dhiig buuxisa la wax laga qabanayna isbitaal Madiina jiifta 24 saac kadib weerarkaasi waxaa dhacay weerar kale oo hoobiyaal ah oo lagu bartilmaamaysaday isla xirada Xalane inkastoo qaarkood sidii kii hore ay ayaguna ku dhaceen meelo ay ku sugan yihiin dad rayid ah madaafiicda oo ku dhacday xiro geela lagu xanaaneeyo ayaa qasaaraha ka dhashay waxaa ka mid ah geerida qof haweeney ah iyadoo sidoo kale waxyeello ay soo gaartay dhowr neef oo geel ah hal saac iyo bar camal aan ilaawana siigad intaan madan dhulka dhigaa ilaa dad Soomaad waa gamaayo ha intaan gurigeena qarax dhacay arislaama qarax ku dhacay ilaa idiri waa soo noqday 4tii bishan May oo shalay ku beegneed ayaa mar kale weerar madaafiica oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ay ku dhaceen qaarkood garoonka kubadda cagta ee Engineer Yariso Exconis waxaana 3 madfac oo mid kamid ah uu ku dhacay garoonka marka laga reebo laba kale ay ku dhaceen guryo ka agdhow garoonka iyada oo waxyeello dhaawacyaha ay gaarsiiyeen dad shacab ah meeshan aan u jeedin waa gurigeyga geedka ku soo dhacay ilmihii iyo habartiina waa ka baxshay ilaahay wax nu gaarsiinin alxamdulillah hadan waa kana wixii halaano waxaana naga qarxiyay كل كواس وحاسن كل دبكاس بأساشيداي إلا أن وحنا نجرسين المية والله وأقول جيران الماء هبرتوا حق كجيران كل جورير أو أنا كان بنام صباح يا دبكاس دونتي كدو يحق سوق هذين كدو جيت صداي وفر واسمه جنجداس يو ماشى سو بجيء meelaha noo gugubay aday wax kale oo saas weyn oo nageersi ma jirto alxamdulillah ma hadda markaana oo horeyso marka ugu horeysa alxamdulillah ilaa ma hadda iskale meesha waxa ku soo dhacay hoobiyo la soo tuuray anaga cid soo tuurtay ma naqaano marka hoobiyo aan ku soo dhacay inuu hoobiyo un baan ogahay wallahi khasaare ka dhashay ani hadda wax oo kale aan hadda aad u xaqiijin ma jiraan gabar gurigaan deganayday waxay roo firir gaaraa la yiri laba hoobiyo kale midna inta ku dhacay midna xagga ku dhacay midkan waa istaagay aan la yiri aniga mid xagga ku dhacna waa qarxay waa shaqaale meesha ka shaqeynaa ku dhaawacna dad caalamiinteena ah ma qaan waxay haayeen dowladda Soomaaliya ayaa saddexdaasi weerar oo dhacay in ka yar 10 maalmood aysan ka bixin wax jawaab af iyo adin ah iyada oo la xasuusto in sanadkii 2017 bishii Abriil 16keedii weerarkaas lamid ah oo ka dhacay Muqdisho ay dowladda tallaabo ka qaaday iyada oo sheegtay in laamaha amniga ay gacanta ku dhigeen gaadiidkii loo adeegsaday weerarka madaafiicda iyo 2 ruux oo la sheegay in ay ka dambeeyeen weerarkaasi weerarada loo adeegsanayo hoobiyaasha ee ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ayaa ahaa birihii u dambeeyay xaalad kale oo dhinaca nabadgelyada ah oo ku soo korortay magaalada Muqdisho
waagaaga warbixintaas ayaa gudaha kaga hari doonaa ee dibadda haddii aan eegno waxyaabaha ugu waaweyn hadda waxaa kamid ah WHO waxay ka digaysaa isticmaalka dawooyinka la tijaabin ee ku aadan xanuunka COVID-19 ama coronavirus. hay-adda caafimaadka adduunka ayaa soo saartay digniin ku aadan isticmaalka dawooyinka la tijaabin ee lagu hortagayo xanuunkan. shacabka Afrikaanka waxa ay mudan yihiin inay helaan daawooyin lasoo marsiyay tijaabooyin ku habboon xitaa haddii ay tahay kuwo daawo dhireed ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda WHO. hadalka hay-adda caafimaadka ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha waddankaasi Madagascar uu soo bandhigay daawo dhireed uu sheegay inay ku fiicnaanayaan dadka qaba xanuunka COVID-19 haddii ay isticmaalaan. hadalkaas ayaa la sheegay in hay-adda WHO ay si weyn kaga carootay. qoraalka hay-adda ayaana lagu yiri shacabka Afrikaanka waxa ay mudan yihiin inay helaan daawooyin lasoo marsiyay tijaabooyin ku habboon xitaa haddii ay tahay daawo dhireed sida lagu xusay qoraalka. ururka midowga Afrika waxa uu sheegay inay doonayaan in ay hubiyaan caafimaadka waxtarka iyo waliba badqabka daawooyinka loo isticmaali karo xanuunkan. agaasimaha madaxtooyada ee waddankaasi Madagascar oo la hadlay BBC ayaa sheegay in ku dhawaad 20 qof muddo 3 toddobaad lagu tijaabiyay daawooyinkan tallaabadaas oo kasoo horjeeda qorshaha hay-adda WHO. laakiin agaasimaha ayaa sheegay in daawo dhireedka madaxweynuhu uu keenay in badi dadka hadda 20 qof lagu tijaabiyay ay ku fiicnaadeen. tijaabada daawooyinkan waxaa la marsiiyay hanaan dheeraad ah oo lagu xaqiijin karo heerarka la faray ee ku aadan cudurkan. marka hore waxaa lagu tijaabiyay qaar kamid ah bukaanada la xanuunsanaya waxaana xigay kuwa kale in lagu tijaabiyay badi way ka kaceen xanuunka ayuu yiri agaasimaha madaxtooyada ee Madagascar. dhowr dal oo Afrika ay kamid yihiin wadamo badan Guinea, Botswana iyo Libya iyo wadamo kale ayaa la sheegay in xanuunkan COVID-19 hadda la dala dhacayaan kuwaas oo la geeyay daawooyin dhirta laga sameeyo xanuunkan ay la tacaalayaan. toddobaadii la soo dhaafay madaxweynaha waddankaasi Madagascar uu in hogaamiyaasha Afrika oo kaga warbixi daawo dhireedka dalkiisa uu soo saaray oo ku aadan in lagu guuleysan karo xanuunkan. shir ay ka qayb galayeen madaxda Afrika ayuu sheegay madaxweynaha waddankaasi Madagascar inuu kusoo bandhigi doono arrintan. warbixintan ugu dambeysay saaxiibayaal warkii caawan oo nageetay nabadgelyo.